badankeena waxaa malaysanaa in dadka indhoolaha ay arkaan madow ama mugdi, laakiin taa ku dhakor midaas sax maaha. haddaba maxay arkaan? Horta indhoolnimada aad bay u kala baxdaa, qaar baa ku dhashay, qaar baa aragooda gadaal ka waaya, qofba waa si. Laakiin sida ay daraasaadku sheegayaan, 10kii indhoole 9 ka mid ah wax uun bay arkaan, sida caweer, iftiin, sida beebirq camal ah ama television. Balse waxaa maanta ka hadlaynaa waa qof geb ah ama indhoolo toos ah. Jawaabtan waxay tahay kuwaas waxba ma arkaan. Waxba. Haa, sababtoo ah madowga waa iftiinka maqnaanshihiisa, kaas oo si loo arko u baahan dareenka arkidda. Ayagana dareenkaas ma laha sidiisa bannaan. Laakiin waxba siday u taalaa. Si aad u fahanto, malayso inaad wax ka aragto xusulkaaga ama madaxaaga gadaashiis. Waxba ma ka aragtaa? Waa may soo maaha. Haddaba macnaha indho la'aanta tooska ah waa sidaas. Okay, haddaba maxay ku riyoodaan? Horta mid riyada waxa u kala qaadaynaa labo. Dad aragooda gadaal ka waayay, kuwaas waxay u riyoon karaan sida caadiga ah. Sababtoo ah maskaxdooda way sawiraan kartaa sida ay dunidu u taalo. Laakiin kuwa indho la'aanta ku dhashay maskaxdooda wax fikrad ah kama haysto wixii aragto. Sidaa daraadeed riyooyinkooda waxay badan ku isticmaalaan dareemahooda kale sida codadka iyo waxyaalaha kale. Waxaan rajeynayaa inaad fahanay. Haddii aad jeceshahay inaad nala saamiso xogahan oo kale, kaalin nagu soo biir.